su-aasha ugu horeysa sheekh waxay leedahay gabar xaq muu leedahay ninkeeda habeen walba markuu guriga imaado inay weydiiso meeshuu ka imaaday ama saacadda uu guriga imaanay ma kontarooli kartaa alxamdulilah waxaan filayaa waxa loo guuxay xaalad jirtay tilmaamaysaayo dabcan su-aasha markii koowaad ay timaadana ma aha un xaaladaha qoyska ee jira weeye midna waa sida asalka ah ee saxda ee wanaagsan midna waa sida khaldan hadday dadku reer dhaqmaya yihiin intaan su'aalba la soo gaarin inay xuduud kala yeeshaan buu reerku ku jiri karaa labada qof ee shirkadda ah labada qof ee deriska ah labada isqaba labada isdhalay haddaan xuduud la kala lahayn isku dhacaa badanaya saa darteed munaasabad horena waan ku yidhi haddana waa ku celin rag iyo dumarka isguursanayaay iyagoo dad waaweynay isu yimaadeen intaanay isguursanayna isu iman iyo intay wada joogaanba qof walba saaxiibna waa lahaa waana yeelan qaraabo iyo ahalna waa lahaa waana yeelan dad bay taxbarasho isku barteen goobo laga barto dad bay deris isku barteen dad bay shaqo isku barteen dad bay ahl iyo qaraabtinimo isku barteen dad bay dadka aysaa isku barteen inay la socdaan isku dhowyiin isku sii barteen dad bay sikadiisa isku barteen qofka bini aadamkiihi meel cidlaha geed ka baxay maaha tan iyo maalinkii gabadha iyo wiilka isguursaday tan iyo maalinkay yaryaraayeen dad bini aadan unbay dhex joogeen oo magaalo iyo suuq iyo xaafaday dhex socdeen khalqiga ilaahay bay isbaranayeen barashada marka laga soo tago midda xun iyo midda wanaagsan qofku markii uu reer noqonayo ama qof nolol la wadaagayo qof xabsi ka soo baxay iyo qof qabri ka soo toosay maaha isagoo mawjad bini aadama ku dhex jira oo sidii u dhex jiray qof wax wadaagayaan waa midda koowaad midda labaadi labadan qof ee gaar ahaan isguursaday intaanay isguursanin mid walba guur buu raadinayay gabadhuna boqolaal bay la xiriiraysay wiilkuna boqolaal buu la xiriirayay intii la xiriirayey la isbaray telefoon baa la kala hayaa waa la xiriiri jiray waa la hasaawi jiray waxbaa la isweydiin jiray qaraabada marka laga tagay iyo saaxiibada kale maanta waa la isguursaday xargahoo dhan jar suuragal maaha xataa haddaad isku daydo wax fuli kara maaha haddii la raadiyo waxaan fuli karinna kii la aas-aasay baa duma markaad reer noqotaan eed isguursataan xuduud kala yeesha intaad xuduud kala leeyihiin xurmaa idin dhex taalla haddaad xuduudahoo dhan isu dhaaftaanna waxaan maqli jiray waagan yaraa barashadu ma xuma laakiin dhaalacashadaa xun qof inaad isbarataan ma xuma laakiin aad hoos wax walba isu gashaan baa xun qofka bini aadamkiihi xataa labada isqaba inta xogtaada qaybo ka qarsoon tahayna xushmuu ku hayaa markuu xogtaada hay-ada ugu dambaysa ogaadana bilaa qiimaad noqotaa waxaan dhihi lahaa gaar ahaan da'yarta isguursanaya aad hoos ay isugu gelina haddaan tusaale idiin sameeyo boorsooyinka waxaa lagu fura ha isweydiinina gabadhan boorsadeeda waxa ugu jiray uusan faadhin maxaa ka galay iyaday u taallaayo boorsadeeda ma dahab baa ugu jira ma sawir baa ugu jira ma faraati baa ugu jira wixii ugu jira faraha ka qaad hadduu soo istaago yidhahdo boorsadaada ii fur maxaad rabtaa inaan ogaadan raba waxa ku jira waa saqajaannimo wey idabdarro wey iyaduna yana boorsadiisa baadhin hadduu halkaa ugu yimaado boorsadeeda taalla yuunan furfurin haddaad furfurta bilaaba balaayo kaa soo dhexgasha iyaduna boorsadiisoo taalla hadday timaadda yaanay furfurin boorsadan waxaa ugu jira idinkoon isaqoon buu qofka kale ugu jiray adiga boolis ma tihid dembi baadha ma tihid dad xab dacwad ooga ma tihid maxaa qofka boorsadiisa iyo baaritaankiisa qoorta kuu geliyey
maxaa idinka dhaxeeya dhaqan wanaagsan iyo nolol aad qaybsataan intaasaa kaaga filan nin saxa taabiciinta ka mida nin baa u yimidoo gabar buu reer weydiistay isagoon arag waa la siiyey waa loo keenay maalinka dambe gabadha la ii keenay gabadhu way qurux badan tahay way caqli badan tahay way karti badan tahay laakiin lug bay kar dhutinaysaa aysan yeelaa buu wuxuu yidhi haddaad inta kale ma fiican tahay ha iska hayso niyow ku soo noqdo aysan yeelaa buu wuxuu yidhi haddaad tartanka orodka inaad ku gasho rabtay dee iska fur tartan orod haddaad rabtay inaad ku gasho heerka dhaqankiisii iyo wixii noloshii intii kaleo dhan waa fiican tahay lug bay kar dhutinaysaa maxay ku yeeli maxaa dhiboo ku jira waxaan rabaa inaan idhahdo qofka ceebihiisa lama baadhbaadho telefoonkaaga ii fur facebookkaaga ii fur youtubekaaga ii fur emailkaaga ii fur reer dumaya dhaqankii wey adna emailkaaga ha siin isna kiisaa raadin adna telefoonkaaga sida saxdaa waxaa weeye telefoonkaaga oo dhacaya inuusan qaban wey telefoonkaaga oo dhacaya inuusan qaban wey telefoonkiisaoo dhacayana inaadan qaban way masajkiisa akhriin kaagana yuusan akhriin taas waxaa ka dhalanaysa gabadha dad baa la soo hadlaya hadduu yidhahdo yaa kula soo hadlay maxay rabtay dumar baa u yimid guriga ku soo booqday markuu arkay wuxuu dumarkan maxay ahaayeen maxay rabeen way baxday dad bay soo salaantay saaxiibbay leedahay qaraabay leedahay suuqay aaday meelay ku leexatay waad soo daahday xaggeed ku soo leexleexatay hadduu yidhaahdo hadday baan ku soo agmaray oo dad baa kula socday yay ahaayeen taas nolol maa cadaab weeyadii qofkan waa qof dembiila oo lugta wax kaga xidhan yahay oo meeshuu maraba kamera lagu haya miya waxay tilmaamaysaa kalsooni xumo qoys oo jirtay tilmaamaysaa kalsooni xumo qoys markay timaadana qoys burburaya waa baasiinka dab ku siishid adiguna marka waxaad tidhahdaa anna telefoonka ii dhiibdhe marka gabadhu kontaroolka haddayso ninkuna kontaroolka haddaayo gabadhu hadday aaminaad jirto marka la isguursanayo qofaad kalsooni iyo aaminaad siisay wey dadkaa aad arkaysaan muujeeddaa ka kula dhashay midka aad dhashay kaad isu dhaxdeen qof nadiifa ma jiro qof ceebka saliinana ma jiro qof aan qaldaminna ma jiro qof walba qaradkiisa toosh haddii lagu shido dadka la iswada nici reerkuna dhisnaan maayo waxaad samaysaan inta daahirkaana kaga gaabsada wixii dhacana ilaa bannaanka u soo baxo wanaag ku fasiroo wanaagga ka raaca hoos haysu qodinoo haysu galgelina marka hore waa la ysku fiican yaho waa la isjecel yahay markaasaa meel walba la ysu galaa markaasaa maalinka dambena durbaqac madaxa la ysku dhuftaa kala aruursanaada wixii dan ahna wadaaga waxaan rabaa inaan ku gunaanado laba waaweyn baa tihiine dan baa isu keenkeentay dan baa isu keenkeentay dantii isu keenkeentay ka wada shaqeeya waxa kale maalaa yacnigan iska daayo billahi tawfiiq